بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكوش حسين ودماتين السلام يمال كسان دقا ونسين عيد بان وفرح سنينان كوكولا نو حلقة maxaad u bilaaban leedahay waxa aad jeceshahay maxaa kaa hortaagan in aad waxaan kaa dhex guuxaya aad dibadda soo dhigtid markaad go-aan qaadatid ee tidhaahdid miisaankaygaan ridayaa ama businesskaygaan ka shaqaynayaa ama waxaan kordhinayaa saalarkayga haddana halkeed ka soo qaad xalaqadan waxaan doonay inaan ka jawaabo su-aal dadku inta badan waxay is weydiiyaan sidee laakiin anigu waxaan ku weydiinayaa qaabkee sidee ku suura gashay in qof kula degan magaalo ama kula degan xaafad ama kula shaqeeya isaguna horumar sameynayo adiguna halkii aad taagan tahay see ku dhici kartaa marka aad go-aan qaadatid ee tidhahdid waxaan ka shaqeynayaa waxa aan jecelahay haddana markaad maalin laba maalmood bil aad wadid aad ka joogsatid maxaa sababa markaa sababtu maxay tahay xanuunku muxuu yahay markaa runtii arrintani aniga ayaa iska daweeyey aniga laftigayga maanta kuu soo duubaya fideogan su-aalaha iyo qaar badan baan isweydiin jiray kadib markii aan si cilmiyeysan u dhigtay waxa weeyaan aan ka qaatay coach macallin arrinkaas waxaan helay jawaab saxa inta badan waxaan isku daalin jiray markii hore inay dhibaatadu tahay dhaqanka waxaan geli jiray markaa dowrooyin barnaamijyo kutub baan akhrin jiray haddana waxaan arki jiray anigoo halkii u taagan maalintii la baray mabda la yidhaahdo daweey asalka laakiin ha daweynin waxa muuqda maalintaasaan markaa ogaaday halkay dhibtu ka taagan tahay dhibtu waa maxay dhibtu waxa weeyaan waa qaab araga waa qaabkaad u fikiraysa weeyaan walidaalika markii aan mabda dhigtay mabdaas wuxuu leeyahay daweey xanuunka ee hadaweynin waxa muuqda xanuunku marka waxa weeyaan waa qaab fikirka haddaba haddii aad jeceshahay adiguna inaan aniguba saan iskaga daweeyey aad iskaga daweysid barnaamijkaas oo aad u gaadhid ujeedooyinkaagii waxaan kaa dhex buuxayaa si fudud waxaan kuu diyaariyey program magaciisa la yidhaahdo kobci awoodahaaga gudaha awoodahaaga gudaha waxay u baahan inaad ka shaqaysid kalsoonidaada waxay u baahan inaad ka shaqaysid qaabarankaaga wuxuu u baahan inaad ka shaqaysid self imagekaaga wuxuu u baahan inaad ka shaqaysid waxaa kaloo la yidhaahdaa ka shaqee naftaada in ka badan intaad ka shaqaynaysid businesskaaga iyo shaqadaada haddaba barnaamijkaas anoo coach xuseen ayaa ku diyaariyey waxaad ka heli doontaa faa'iido aan la soo koobi karin laakiin waxaad ku qaadan doontaa qiimo yar oo aada u fudud waa barnaamij markaad qaadatid ad ilaahi subxaana wa tacaala ugu mahad celin doontid faa'iidooyinka aad ka heli doontid sidaan aniguba hadda aan ilaahi subxaana wa tacaala ugu mahad celinayo adigana sidaas iyo si ka weyn baan kuu rajaynaya haddaba barnaamijkaas waa diyaar waqti kastaad la soo xidhiidhi kartaa xasuusnaada in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu